waxaa farxad inoo ah inaan maanta ku kulanno howlkan annagoo ujeeddadana ay tahay inaan soo afgarno tababarkii noo socday usbuucii soo dhaafay la xiriiray gabdhaha iyo ICT-da gaar ahaan waxa la xiriiro AI-ga iyo kaalinta gabdhaha ee mustaqbalka waqtiga oo nahayo wasiirada sharafta leh nala joogo oo jadwalkooda iyo mas-uuliyaad kale ay saaran yihiin oo meelo kale u cararayo kuma dheeraanayo waxaan leeyahay mas-uuliyadda ani maanta halkan aan u fadhino waa howl sanadkii afraad si joogto ah uu u qabanayo macadka isgaarsiinta qaranka isgaarsiinta teknolojiyada qaranka sidoo kaleeto waxaa sanadkan qayb ka ahaa oo hawshaasi nala fududeeyey oo ayaga la'aantood aysan sida qurux badan u qabsoomi lahayn arkaan leadership and innovation oo iyadana ah kambani ama xarun ka shaqayso horumarinta dhallinyarada soo saaritaanka hoggaan dhallinyaro oo ku hubaysan aqoon iyo khibrado iyo waayo-aragnimo dhanka teknolojiyadda ah sidoo kale waxaa ayana gacan nagala geysta oo barnaamijkaas qayb ka ahaa shirkadda tabaariga ICT shirkadda hormuud telecom iyo sidoo kaleeto salam bank oo dhammaantood ayagana gacan farsamo ka geystay in maanta aan soo gaarno marxaladdan barnaamijkan ku saabsan ICT iyo gabdhaha waxaan ognahay adduunka inuu maanta ku tallaabsanayo horumaro isdaba joog ah oo ku saabsan dhanka teknolojiyadda oo brogramkii ama firshinkii laga yaabo bil ama 2 bil ka hor nala cusbaay inuu maanta update soo marayo ama laga maarmayo oo midka cusub uu soo gelayo oo waayadii ay bilaabanayeen soo ifbaxayeen muxuu ahaa barnaamijda IT-da software la isticmaali jiray inay maanta taariikhda ka mid yihiin oo qaarkood markii magacooda ladin sheego aad la yaabtaan oo tiraadaan waxaas ma jiri jireen ma la isticmaali jiray saas daraaddeed ayaa waxaa qasab ah in si loola socdo oo loola joogteeyo mar walba in ama ha noqoto dhankii akaademiga iyo waxbarashadii ama ha noqoto dhankii tababarka iyo wacyigelinta inay joogto ahaato fursadaha la siinayo ardayga iyo muwaadinka Soomaaliyeed si uu ula jaan qaado horumarada iyo isbedelada dunida ka socdo AI maanta markii la yiraahdana waxa uu marayaa marxalad adduunka markii loo fiiriyo annaga wali waxaan dhihi karnaa waxaan ku soo jirnaa halal waxa la yiraahdaa waxa jirto wax la yiraahdo gaab u kala dhaxayo bulshooyinka adduunka dadaalada noocan la qabanayo waxa la yiraahdaa gaabkaas waxa lagu sameynayaa buundo ay isaga kala gooshaan qoladii laga tagay si ay u haleelaan kuwii ka tagay marka Soomaaliya si aysan uga harin adduunkaas ayaan u sameynaynaa tababarada iyo koorsooyinka noocan ah gabdhaha waxa loo doortay oo si gaar ah loo saarayna waxay tahay marka hore ee bulshadana aan joognana fursadaha wiilasha ay helaan gabdhaha ma helaan gabadha markii ay wax baratana guriga ay ka soo baxayso ama guriga ay hooyo ka noqoto ayay saameyn kale ku yeelanaysaa ilmaheedii iyo gurigeedii iyo reerkeedii bay aqoontii dib ugu celinaysaa marka mujtamacii oo dhan ayay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ay u geysanaysaa marka in la soo gaarsiiyo kaalintii ragga maalin furitaankii barnaamijka waxaan sheegay waxa aniga gabdha ay la dhashay gabdhihii la dhashay hal mid ah soo gaartay dugsi sare inta kale waxay ku mashquulsanaayeen aniga intaan wax baranayo adeegayga iyo cuntadeedii nolosheedii inay ayaga mataqaanaa ku mashquulsanaadaan ayaa waqtigooda ku baxday saas daraaddeed waxaan u qaatay inaan gabdhahaygii wiilashayga isku si aan wax u baro alxamdulillah waxna waa ay bilaaban yihiin waxna waa soo socdaan marka saasay u tahay in gabdhaha loo siiyo mudnaan gaar ah oo tababaradan iyo kuwa kale soo socdaba aan u leenahay haddii kuwa guud la qabanayana qaybtooda ay kula yeelanayaan barnaamijyo u gaar ah oo ayaga lagu kabayana way jirayaan